shaqadii aan qabanay annaga iyo adinka iskaashigeena maxay ka soo baxay natiijo la'aan marka inaan ilaashanaa loo baahan yahay guryaheennaa ku yaal ubadkeennaa deggan walaalaheennaa deggan waalidkeennaa deggan uma oggolaanayno dameerlaawayaashu inay siday doonaan ay ka yeelaan ma doonayaan in waddooyinkeennu ay dhismaan ma doonayaan magaaladeennu inay qurxoonaatona ma doonayaan bulsho caafimaad qabta inaan noqonno ma doonayaan arrintaas waxaa u daliilah dad nool oo waddankooda jooga ee xor ku ah inaan noqonno ma doonayaan qofay handadaan qofay dilaan qofay dhacaan oo ay baad ka qaadaan iyo meelay qarxiyaan kaliyahay ka dhigaan ma aqbali karnaa waxaas arrintaas ma aqbali karno aadaad u mahadsantihi arrinta aan sheegaayo ma ahan wax aan ku riyooday wax aan maleeyana ma ahan waa wax dhacay oo aad adinkuna og tihiin ood aragteen waddada afgooye qudaartaan waxaan afgooyaa ka helnaa iyo balcad soo maaha dawladda soomaaliya iyada oo kaashanaysa saaxiibbadood haddaadan tabar lahayn oo wax kastoo aad u baahan tahay aadan heli karin mamnuuckaa ma aha walaalkaa inaad u kaashato waxaadan awood waxay la kaashatay dawladda soomaaliya dawlado aan saaxiibna waxay ka bixiyeen dhaqaalo walaalo kalena noo dhisay yidhaahdeen waddooyinka meelaha raashinku nooga yimaad meelaha qudaartu ay nooga timaado yacnii meelaha webiyada iyo bilicda leh waddooyinka aadan noo dhisaale waxaad og tihiin waddada afgooye iyo xamar isku xidhta iyo waddada xamar iyo jawhar isku xidhta oo aad og tihiin muhiimadda ay noo leeyihiin bulshadeenna u leeyihiin ayaa dhismo ka socota dhismihii koowaad waxaa laga bilaabay magaalada afgooye iyo xamar isku xidhta waddada isku xidhta waxaad og tihiin waddadaas waa gebagebo laakiin walaalihii noo dhisaaya maxaa kula dhacay dadkeennii danahooda u soo kallaxay maxaa ekis kontarool kula dhacay taasi waxay muujinaysaa sida ay uga xun yihiin annaga horumarkeenna iyo nolosheenna sidaa darteed ma jeclaa karno mana aqbali karno mana isu dhiibi karno inayna addoonsadaan ama aan lahaysta u noqonno ma aqbalayno waxaan doonayaa marka arrintaas inay dhab naga ahaato midka qarriban gurigaaga qarxinaya kaa qaxinaya wiilkaaga waxbarta dilaaya gabadhaada waxbarata dilaaya qalbiga qoyaanka ka ilaalinaya oo qalbiga ka qalalay waalan oo naftiisa dilka ka soo bilaabaya inayna u oggolaan dalkeenna iyo dadkeenna inayna u oggolaan